well qaybtii dambeysay baynu haddana waxa weeye aynu arkaynaa qaabka loogu sameeyo scoringka haddiise aadan daawan labadii muuqaale ku horreysay please waxaan kusoo jeedin lahaa inaad dib u daawato labadii hore si aad kan ula qabsato sideedii su-aaloodba waxaan inta dib aan u korgeliyey waan kasoo guurayaa qaybtii hore su-aalihii hore knowledge-ka uma baahan iminka kuwaan saxan ayaan isticmaali doonaa so qaabkan baa la isugu dardarayaa ama average baa lagu sameynayaa compute maxaa la yidhaha transform compute kadibna halkan baa kusoo furmaysaa meesha hore target variable-ka magac waa inaad ku qortaa kadibna factor walbaba aad sidaas u gelisaa adoo balaasta u kala dhexaysiinaya variable name-ka adoon qorin isku day inaad isku dardartid soo column halkan kuu soo galay la yiraahdo knowledge score sorry halkaas knowledge average baan ka rabay waan sixi doonaa qof walbaba dhibcaha u helay istirahaan qof knowledge magacaan saxo marka hore intaan score ka gudbin halkan waa knowledge average ama overall average weeye qof walbaba laba 18 su'aalood la weydiiyay qof walbaba inteebu si sax uga jawaabay knowledge score-ka haddana aan sameynaya waxaan oranayaa markaas wixii 5 ka hooseeya waxaad ka dhigtaa 0 qofkii 6 su'aalood ka badan ku jawaabayna number 1 c soo qofkii 5 su'aalood iyo wixii ka hooseeya ka jawaabay si sax ah siiraan ka dhigay qofkii 6 su'aalood iyo ka badan ku jawaabayna waxaan ka dhigay number 1 labada group baan u qaybiyay soo inta waxaan sameeyay average-kii iyo score-kii one waxay u taagan tahay qofkaas wuxuu leeyahay good knowledge waa kolka u dambeeya zero waxay u taagan tahay qofkaas wuxuu leeyahay poor knowledge so you see scoring hadda waxaan jaaminaa bal analyze-ka descriptive-ka aqoonta guud ee dadku ay leeyihiin markii laga soo bixiyo questionnaire-kaas aqoontooda guud waa sidee average kooda 287 ayaa waxay yihiin poor knowledge 98 waxay yihiin good knowledge bileeyahay ama aqoon fiican bileeyahay so sidaas si lamid ah ayaad ku sameynaysaa su'aalaha practice-ka iyo attitude-ka so that's it inaad inta kala dhameysan kartaan baan filayaa oo qaybta aad ku fahanteen aad baan idin salaamayaa thank you so much for your watching joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahina siiyay isabaale